السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. janalka naga daawanaysaan waa yaabsad official. kusoo dhawaada barnaamijkii taariikhda qaybtiisa dallowre. barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa dallowre astaan u ah xorriyadda Soomaaliya, dallowre astaan u ah ummadda Soomaalida, dallowre astaan u ah ciidiisa iyo calankiisa, dallowre astaan u ah dhaqdhaqaaqnimada iyo gobonnimada. Sheekh Xasan, Sheekh Nuur, Sheekh Axmed oo loo yaqaano Sheekh Xasan Barsane ayaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta. kusoo dhawaada daawadayaal. Sheekh Xasan Barsane oo loo yaqaano Sheekh Xasan Barsane oo loo yaqaano Sheekh Xasan, Sheekh Nuur, Sheekh Axmed waxa uu ku dhashay tuulo ku taala gobolka Shabeellaha Dhexe oo aad ugu dhow magaalada Jowhar oo ah magaalo madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe. waxa uu dhashay sanada markii ay ahayd 1853. quraanka ayuu aad u bartay, sidoo kale waxa uu cilmi u doontay tuulo ku taala degmada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Sheekh Xasan Barsane waajibaadkiisa xajka ayuu soo gutay isaga oo ilaa iyo 2 mar xajiyay. dalka Sacuudiga ayuu joogay 3 sano, waxa uuna haystay dariiqada saalixiyada sida ay dadka qaar sheegaan. Sheekh Xasan, Sheekh Nuur, Sheekh Axmed oo loo yaqaano Sheekh Xasan Barsane 1923 ayuu bilaabay dhaqdhaqaaqiisii maadaama ay Talyaaniga doonayeen in ay Soomaalida ka majaxaabiyaan xorriyadii iyo madaxbannaanidii ay haysteen. waxa uu ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadii gobonnimo doonka Soomaalida. inkastoo aysan markaasi jirin guux dhaqdhaqaaq iyo gobonnimo doon, haddana Soomaalida ayaa ahayd mid markastaaba ka horeysa ummadan kale ee degta qaaradan Afrika. waxa ayna markasta oran jireen mahmahyadii ahayd gunnimo dhereg leh waxaa ka wanaagsan gobonnimo gaajo leh. dhaqdhaqaaqyadii kale ee Sheekh Xasan Barsane la tirsanayay waxaa ka mid ahaa Axmed Gurey, Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo ayagana ka halgamayay gobolka waqooyiga iyo geesta Soomaali galbeed. guud ahaan Soomaalida waxa ay muujiyeen soo gelitaankii gumaysiga kadib in ay iska difaacaan oo ay xorriyadoodii iyo madaxbannaanidoodii soo celiyaan, taasi oo keentay in wadamo badan oo Afrika ah ay xorriyadda qaataan. Soomaalida waxa ay markii horeba il u ahayd ganacsiga Afrika, balse kadib waxa ay ku darsatay inay hormuud ka noqoto xorriyadii wadamadii Afrika ee la gumaysanayay. markaa soo celintii xorriyadda ee Soomaaliya wax garab ah oo ay ka helayeen ma jirin qaaradan Afrika, balse waxa ay sameeyeen iskaashi wada jireed kaasi oo ka fogaa qabyaaladda iyo qurunkeeda. taasi ayay nagu soo gaartay qarannimada maanta aan ku naaloonayno, balse annaga aan hoos u dhigayno. Sheekh Xasan Barsane dhaqdhaqaaqyadaas aadka u faca weyn ee lagu soo gaaray gobonnimada iyo xorriyadda ayuu ka soo shaqeeyay, kana mid ahaa waxa ayna dhaleen gobonnimo doonadii loo yaqaanay SYL. 1923 iyo ka horba Soomaalida waxay ahaayeen dad aad iyo aad ugu bisil inay gobonnimadooda hantaan, balse ugu dambeyntii SYL ayaa xorriyadda u keentay Soomaaliya. Sheekh Xasan, Sheekh Nuur, Sheekh Axmed Barsane waxa uu ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadaas Soomaalida soo gaarsiiyay gobonnimada iyo xorriyadda. waxa uu doonayay in diinteena marnaba ay soo faragelin reer galbeedka. Sheekh Xasan Barsane waxa uu ka mid ahaa dadkii sidaasi ugu soo halgamay diin iyo dhulba Soomaalida. daawadayaal dhegeystayaal, halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii taariikhda qaybtiisa dallowre oo aan kaga hadlayay Sheekh Xasan Barsane. maanta barnaamijkeena waxaan kusoo qaatay Sheekh Xasan Barsane taariikhdiisa, gaar ahaan qaybtiisa dhalashada iyo waxa uu aaminsanaa. haddaba waa inuu mar kale iyo dagaalkii dhex maray Talyaaniga iyo dhaqdhaqaaqii Sheekh Xasan Barsane uu hogaaminayay. aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal.
soomaali baan ahay sanagiyo qoraxey saylac iyo gaarisa carte iyo sablaale hood iyo sool soomaali baa lehe allow nabad ku soo allow nabad ku soo allow nabad ku soo allow nabad ku soo amiin